federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre shirkaas oo uu inoo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socdo dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka 18 bisha March 2020 muddo 15 cisho ah macnaheedu waxa weeyaan bisha 18keeda marka ay dhamaato habeenkii 6 saac la gaaro 19 diyaarad international ah mana iman karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladda ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raali noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadanimada iyo xaalado gaar ah insha Allah tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka Soomaaliya dhammaantiis ayay